ururka samafalka Alpha Trust oo ay aasaasan qurba joogta Soomaaliyeed saldhigiisuna yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa isaga oo ka jawaabaya dhibaatada bulshada ka soo gaartay daadadkii toddobaadkan ku soo rogmaday magaalada Qardho waxa uu maanta magaaladaas gaarsiiyay deeq ka kooban noocyada kala duwan ee gogosha sida furshaan, barkimo, bustayaal iyo go'yaal kuwaasi oo ururku ugu talagalay in lagu caawiyo dadka ay biyaha roobka alaabtooda kala tageen. deeqdan ayaa si rasmi ah loogu wareejiyay guddiga ay dawladdu u xilsaartay abaabulka iyo gurmadka magaalada Qardho. duqa degmada Qardho Cabdi Siciid Dheere ayaa gudoomiyaha ururka samafalka Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye waxa uu uga mahad celiyay sida dhaqsaha leh ee ururku uga soo jawaabay dhibaatada soo gaartay bulshada magaalada Qardho. halkaan joogno waxa weeye magaalada Qardho baqaarada ee runtii raashinka lagu dejinayo ee kaydka waxaan halka uga mahad celinayaa ururka Alpha Trust oo runtii uu madax u yahay ninka la yiraahdo Daahir Cali Kulmiye oo jooga fadhigiisuna yahay bisha UK aad baa uga mahad celinaya iyagoo halkan ugu soo gaarsiiyay chief alaab chief oo dadka loogu talagalay biyuhu ka qaadeen daadadku in ay chief ka dhigtaan sidaa daradeed aad baa ugu mahad celinayna runtii Daahir oo runtii alaabtan soo gaarsiiyay tan iyo markii la aasaasay ururka samafalka Alpha Trust sanadkii 2014 waxa uu kaalin mug leh ka qaatay sidii loo caawin lahaa bulshada Soomaaliyeed ee dhibaataysan. ururka Alpha Trust waa urur samafal ah waxa uu had iyo jeer ka qayb qaataa waxyaalaha quseeya arrimaha bulshada gaar ahaan marka ay xaaladaha noocan oo kale ay yimaadaan. gudoomiyaha Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye waxaan uga mahad celinaynaa sida degdega ah ee uga soo jawaabay xaaladda ka dhacday magaalada Qardho fatahaad leh oo dad badan ay dhibaato ka soo gaartay dad badan ay ku hanti beeleen halka dad badanna ay dadkooda ku waayeen. wasiirka wasaaradda haweenka Puntland sidoo kalena xubin ka ah guddiga gurmadka Marwa Aamina Cusmaan Xaaji waxa uga mahad celisay ururka Alpha Trust deeqdan ay soo gaarsiiyeen bulshada dhibaataysan xilligay ku habooneed iyadoona sidoo kale sheegtay in deeqdan sidii loogu talagalay loo gaarsiin doono dadka ay dhibaatada soo gaartay. waxa guddiga abaabulka iyo gurmadka deeqaha Puntland ay halkan kula wareegeen agab isugu jira gogol iyo waxyaabo kale oo ku filan 50 qoys oo ay nagu wareejisay hay'adda Alpha Trust aad baan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo aad uga soo qayb gasheen gurmadkan insha Allahna waxay gaari doonaan dadkii loogu talagalay waa mahadsantiin. ururka samafalka Alpha Trust waxa lagu xasuustaa doorka muuqda ee uu ka qaatay arrimo ay ka mid yihiin garab istaagga dadka danyarta ah sida dadka naafada ah kuwa jilicsan ee waayeelka ah gurmadka goobaha ay ka jiraan abaaruhu waxa uu qabashada iyo shaqo abuurista qoysaska dhibaataysan iyo waliba taageerada walaalaha Soomaaliyeed ee qaba baahiyaha gaarka ah. gobolada Puntland ayaa ka mid ah meelaha ururka samafalka Alpha Trust uu ka hirgeliyay arrimo ay ka mid yihiin ceelal biyoodyo iyo sidoo kale goobo khayri ah. Maxamed Madani Universal TV Qardho.